soo dhawaada muuqaalkii labaad ee aanu ka sameynayno barnaamijka EasyBot. muuqaalka koobaad haddii aad rabtid waxa uu ku saabsan yahay EasyBot waxa uu yahay iyo waxyaabo ka shaqeeyo ayuu ka hadlayay. marka waad soo daawan kartaa channelkan ku jira. muuqaalkana waxaanu kaga hadlaynaa sida la isugu xidho Binance iyo EasyBot ee barnaamijka free ah looga faa'iideysto. website-kooda markaad soo gashid, website-ka update baa lagu sameeyay maalmihii ugu dambeeyay. markaad soo gashid halkan ay pricing ku qoran tahay haddii aynu si guud u eegno waa packageska ay bixiyaan. marka waa packages way kala duwan yihiin. package-ka free-ga ah iyo package-kan advanced-ka oo 250 ah iyo package-kan VIP-ga ah 995 ah. marka waxyaabo kala duwan adeegyada lagu siinayo kala duwan yihiin. kan oo kale number of trading pairs lagu ogol yahay 2 coin oo kaliya lagu ogol yahay in trade garaysid. kanna 10 coin baa lagu ogol yahay. kanna pairs lagu ogol yahay waa all oo inta hayo dhan marka 22 meelahaas weeyaan inta coin ay ogol yihiin. kan exchange-ga lagu ogol yahay waa hal exchange Binance oo kaliya. kani waa laba qofka laba exchange leh. kanna 5 exchange baa lagu ogol yahay. kan fee-ga laga qaadayo waa hal trade kasta bille maaha. qolka 30 buu trade kasta oo galo faa'iido soo baxda 30% buu leeyahay. kanna waa 20, kanna also waa 27. waxyaabahan kale waa adeegyo dheeraad ah sida Zoom calls kale lagu ogol yahay. kan laba laguma ogola waa monthly private meeting. waa meeting lagu la yeelanayo oo private oo bishii mar lagu la yeelanayo. labadan ma laha kan baa leh isagu. haddii waxaas oo dhan ka imaadno kan login haddii aan ku dhufanno waxay noo soo baxaysaa shaashadeennii hore u naqaanay. ka geeskan ayaad click siinaysaa kadibna halkan ay bot management ay ku qoran tahay ayaad click siinaysaa kadibna user exchange markii aad click siisay halkan baa ku soo baxday. marka waxaan rabnaa inaan Binance-geena aan ku xidhno botkan kadibna aan free ah isticmaalno. marka halkan add user exchange ay click siinaysaa. marka wuxuu ku soo saarayaa daaqad saan oo eg. halkan baad buuxinaysaa. sidoo kale Binance-gaaga inta ku laabatid ayaad keygan iyo secret-kan labadaba ka soo qaadan doontaa. exchange-ga imka lagu ogol yahay halkan dhowr exchange ay ku soo qori doonaan maalmaha u dambeeya. laakiin hadda Binance kaliya lagu ogol yahay. Coinbase iyo waxaas way ku xigi doonaan insha Allah. halkan magaca doontid oo bixinaysaa magaca qofka. hadii aynu cali oo kale u bixino halkanna Binance ayaa inoo dooran. keyganna waxaanu ka soo qaadan doonaa iyaga iyo secret-kan labadaba Binance. marka haddaynu akoonkeena Binance ku laabano halkan profile-kaaga ayaad hoos soo degaysaa. profile-kaaga aad tegaysaa kadibna hoos soo degaysaa. halkan ay ku qoran tahay API management ayaad click siinaysaa. halkan baa kuu soo baxaysaa. marka halkan baad ku qoraysaa wixii aad ku xidhaysay. marka inagu EasyBot baan ku qoraynaa kadibna create API baan ku click siinaynaa. verification buu ku marinayaa. marka waa inaad verification ka gudubtid. security verification buu weydiin doonaa. marka laba code bay soo diray midna email-ka midna halkan Google-ka. marka labadaas aynu soo buuxinaynaa. markaad soo buuxisid submit baad odhanaysaa kadibna shaashadan buu ku soo saarayaa. halkan API key ayaa kugu qoran. marka copy baad siinaysaa. waxaad ku buuxinaysaa halkan key ay ku qoran tahay ayaad paste siinaynaa. halkan secret-kana waan ku laabanaynaa. secret-ka lagu sheegayana waa kan. marka kanna copy baad soo siinaysaa oo highlight garaynaysaa kadibna copy kadibna halkaaga baad kula soo laabanaysaa paste. intaa marka soo buuxisid save baad odhanaysaa. markay saa kuu tahay ay ku buuxdo ayaad halkaaga kusoo laabanaysaa. halkan yare labada calaamadood ku qoranta ku dhufanaysaa kadibna bot management baad ku dhufanaysaa. bots baad click siinaysaa. marka add button baad odhanaysaa. marka halkan kusoo baxo click baad halkan siinaysaa. halkan magacaas kaga qoranaysaa. marka cali oo kale haddaynu ku qorno halkan exchange-gii waa kan cali inoo soo qabtay. halkan coins-ka adiga kii aad rabto ka dooranaysaa maadaama ka free-ga isticmaalaysid midun baa lagu ogol yahay. marka ka volatility-ga badan ama dhaqdhaqaaqa badan ayaad soo baaranaysaa insha Allah. XRP USDT haddaynu dooranno oo kale halkanna cycle-ka u dah. halkan waa active. halkan waxaad balance-ga USDT-ga ku jirta ayaad ku qoraysaa. ugu yaraan 600 bay iyagu ogol yihiin. ka 600 haddii aad dooratid halkan compounding-kan waa ina click ku ahaato sababtoo faa'iido kasta uu sameeyo wuxuu kugu darayaa asset-kaaga guud kadibna ku sii shaqaynaya. marka waxyaabaha ugu wanaagsan ay ka mid tahay halkan initial order-ka 20 buu bilaabayaa. marka asaasaad ku dhaafaysaa. intaa wixii ka dambeeya save baad odhanaysaa. markaad save garaysid trades-ka wax kasta waad soo kici doontaa. marka halkan coins-ka baad iska ilaalinaysaa. coins-ka adigu aad u baahan tahay ama aad xiisaysid baad ayaad ka dooranaysaa kadibna save baad odhanaysaa.
dadka kusoo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum.